بسم الله الرحيم. عمي waa mahadsan tahay. waa member stay memberna waa mahadsan yihiin. fursaddan ay noo siiyeen inaan ka hadalno caqabadaha hortaagan doorasho muddo hal sanada in dalkan ka dhacdo. intaanan taas u guda gelin horta waxaan rabaa marka hore inaan ka hadlo xaggeen ka nimid Soomaaliya 5 sano ka hor. runtii dalkeena saa la socotaan waa dal wajahaya caqabado nation isku imaanaya. waa ka duwanahay dalal badan oo ayagu wajahaya caqabadaha nation kala tegaya. waxaa tusaale u ah dowladda dariskeena Ethiopia oo hadda ayadu wajahaysa caqabadaha dowlad kala tegaysa runtii. laakiin annaga 90kii ayaan kala tagnay. kala irdhowga ka hor uu soo bilowday 80meeyadii, laakiin kala tagii lagu kala tegay waxay ahayd wixii dowladnimada ahaa 90kii ayay soo bilaabatay. 10 sano anagoo kala maqanaan mar kale isku dayna inaan social contract ama heshiis bulsho oo siyaasadeed aan ku galno magaalada Carta, kii oo ay Somaliland ka maqan tahay yaan ku wada joognaa ilaa haddeertaan. ummadaha marka wajahaya caqabadaha dal isku imaanaya waxaa la fiiriyaa maxay markii hore ku kala tageen. dabcan caqabadaha ugu waaweyn ee isku imaashaha ku horgudban waxaa ka mid ah in laga aamin baxay dowladnimada. waxaa ka mid ah inay bulshada kala irdhowday oo ay kala aamin baxday as bulsho ahaan ayada nafteeda dhexdeeda. kalsooni la-aan lagu qabo dadka siyaasadda hagaya inay xalka siyaasadda ka keeni karaan. saddexdaas qodob ugu waaweyn markii laga tago caqabadaha kale oo tirada badan. maxaa sababay haddaan isweydiino? waxaa sababay kala talisnimo oo xukunkii taladiisii lagu kaliyoobay, ku takrifal awoodeed iyo mid dhaqaale oo kala talisnimada la socda, ku danaysigii xukunkii oo lagu danaystay ama waxaa nepotism kaliya si beeleed ama si kooxeed loogu danaystay, ku tumashada xuquuqda muwaadinka xaqiisii oo lagu tuntay, iyo kala dilkii bulshadii oo la kala dilay. saasay ku burburtay dowladnimadii. markay burburteen dadkii way kala tageen. qolo walbana deegaankeedii waxay ka samaysatay inay ayada isku daydo inay halkaas ay ku badbaado. Puntland, Somaliland oo go-itaan ku dhawaaqday ayaa bilowday 90kii bilowgiisii. Puntlandna dabayaaqadii 90meedii ayadana dhisatay. deegaankan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waa ku fashilmeen inay wax maamulo dhistaan ayadoo dowlad aysan jirin. maamuladooda waxay ka bilowdeen markii dowladaha ay soo bilowdeen kumeel gaarka ah ayay ka bilowdeen, gaar ahaan markii kumeel gaarkii laga baxay. dowladda marka la rabay inay kala irdhowgaas bulshada iyo kala aamin baxa u dhaxeeya bulshada iyo ka aamin baxa dowladnimada intaba in la daaweeyaa la rabay. dowlad kastana waxaa la siinayay waajibaad qaran oo ay tahay inay ka soo baxdo, oo ugu horeyso in heshiiska bulsho oo dastuurka ay dhammaystirto, inay dalka xasiliso, ammaankana sugto, ciidan qaran oo talada kala wareega kuwa AMISOM kana adkaada al-shabaab ay dhisto, inay ku tilaabsato nidaamka xisbiyada badan si qabiilka 4.5 looga baxo lana qabto doorasho qof iyo cod ah, in dib u heshiisiin la sameeyo oo la dhago boogihii jiray la dhayaan rabaa, dagaaladii sokeeye iyo tabashooyinkii ka dhasheen la daaweeyo, in Somaliland oo gooni isku taagtay lala hadlo, iyo in xiriirka dowladaha dariska iyo caalamka intaba la hagaajiyo. dowladda marka hadda waqtigeeda dhammaaday ee hoggaankeeda ama maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo hogaaminaya Farmaajo 5 sano la soo dhaafay, 4 sano oo muddo xilli sharci ah iyo sanad ku dhawaad hadda sharci darro ah, waxay keentay inay xoojiso kala aamin bixi iyo kala irdhayntii bulshada, ku takrifal awood, ku tumashadii xuquuqdii muwaadinta, ku danaysigii xukunka. wax allaali wixii dhaawacayay wadajirka iyo midnimada iyo in laga soo kabto dadku inay ka soo kabtaan dhaawacii gaaray xilliyadii hore ee 90meeyadii halkeedii ayay ka sii waday. ficilo waxay ku tilaabsatay diiwaan gashan oo taariikhdan loo diiwaan geliyey, dadka Soomaaliyeedna u diiwaan geliyeen. waxaa ka mid ah inay dhiibeen oo ay ka bilaabeen muwaadin Soomaaliyeed oo dowlad ajnabi ay u dhiibeen. waxaa ka mid ah weerarkii 17 December ay ku soo qaadeen xarunta xisbiga wadajir. waxaa ka mid ah xilka tuuristii ay ku sameeyeen guddoomiyihii baarlamaanka Jawaari oo si xooga looga tuuray xulka iyo xilka looga tuuray, iyo markii motion asaga dhan ah uu qabtay guddoomiyihii bedelay Jawaari ee Mursal loo xoog sheegtay oo saa la socotiin biyihii korontadii laga jaray, filla Soomaaliya xoog looga soo saaray. markii dambena cadaadiskooda u hoggaansamay. weerarkii lagu qaaday labada madaxweyne oo ay ka horeysay diyaaraday saarnaayeen in dhibaato loo geystay. mudaaharaad dad siyaasiyiin oo madaxa mudaaharaadayaan oo la xabaday oo la rasaaseeyey.
waxaa ka mid a in ciidan kumaandooso Etoobiya ka yimid lagu qabsan rabay magaalada Kismaayo, waxaa ka mid a xilka tuuristii ra-iisul wasaarihii hore lagu sameeyey, waxaa ka mid a afgembigii la isku dayey in hadda lagu sameeyo ra-iisul wasaaraha jiro, iyo dagaaladii loo adeegsaday awoodda iyo in maamul lagu dhiso ee ka dhacay Galmudug iyo koonfur galbeed intaba. intii ay talada hayeen dalka waxaa ku soo noqday colaadihii sokeeye oo hadda dowlad goboleed kasta waxaa ka dhacay colaad sokeeye ayaa ka dhacday. hadday tahay ugu dambeysay haddeertaan Puntland, Galmudug way ka dhaceen saa la socotaan oo Dhuusamareeb iyo Gurceelay ka dhaceen, South West waa ka dhacdo Baydhabo ka dhacday, Jubbaland waa ka dhacdo Geday ka dhacday, Xamar 2 jeeray ka dhacday oo waad la socotaan, Hiirshabeellena waa la socotaan oo Beledweyne ayay ka taagan tahay. marka waxaasoo dhanna waxaa keenay awood in lagu maquuniyo codka ka ra'yi duwan intii lagu soco lahaa wax la yidhaha consensus building, in lays ogolaado is-ogol iyo talo isla guddoonkeeda halkii laga wadi lahaa ayaa waxaa laga waday in maaragtay wax la yidhahdo iqsaaga ama exclusionka ama dadka in la barabixiyo oo xoog iyo awood loo isticmaalo. saa la socotaan arrimahaas waxay dhaleen marka in dhaqanka siyaasadeed ee ku dhisan xoog iyo xukun boob iyo xiisad kicin iyo qof walbaba ayada in isdifaacdo qof kale u xoog sheegto inay wadankii dhammayba oo noqdo wadan paralyzed ah oo ay ka taagan tahay colaad, oo ay ka taagan tahay dhiilo, oo uu ka taagan yahay nacayb, oo uu ka taagan yahay dadkii inay iskareenay isdagaaleen, oo qabiil iyo maaragtay xoog sheegasho oo heer jufo hoose ah gaarsiisan dadkii ay ku noqdaan. haddaan usoo noqdo arrinta doorashada saa la socotaan maratoonkeeda wuxuu ka soo bilowday Juun 2020 markii uu isku dayay madaxweynaha xilkiisa dhammaaday inuu baarlamaanka marsiiyo ama uu marsiiyaba golaha shacabka gaar ahaan sharci loogu yeeray sharciga doorashooyinka oo leeyahay qof iyo codaa lagu qabanaya, laakiin dadka dhan ay arkayeen inay tahay sharci loogu talagalay muddo kororsi. waxaa ka hor yimid aqalka sare saa la socotaan, waxaa diiday dowlad goboleedyada, waxaa diiday xisbiyada ama mucaaradka ka hor yimid. waa taa la socotaan oo shirkii ugu horeeyay Juulaay ayuu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb oo martigeliyay madaxweynaha dowladda Galmudug oo ay dowlad goboleedyada keligood 5 isugu tageen oo ay halkaas ka soo saareen dalka in laga qabto doorasho xilligeeda ku dhacdo. September 2020 ayuu ogolaaday heshiiskii doorashada dadban. gudiyadii FID iyo SID hirgelinta doorashooyinka heer gobol iyo heer federaal ayaa la dhisay November 2020. 6 Febraayo 2021 ayuu shirkii Dhuusamareeb ka soo istaagay oo waa la socotaa oo shirkii Dhuusamareeb 2 markuu dhacay waa tii ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray. Dhuusamareeb 3 markuu dhacayna waxay dhacday in ay kasoo qeybgeli waayaan Jubbaland iyo Puntland oo 3 dowlad goboleed oo gacan saar leh farmaajo ayaga isku tagaan. markii dambena loo noqday Dhuusamareeb offer loo noqday oo ka soo istaagay shirkii 6 Febraayo oo arinta gedo daraadeed uga soo istaagay. 12 Abriilna wuxuu ku dhawaaqay muddo kororsi. 25 Abriil waatay dagaalo ciidan gadoodsan oo ka soo horjeeda muddo kororsiga ay sameeyeen gadood ay sameeyeen. 1 May ayuu dib uga laabtay oo ku noqday muddo kororsigii ka laabtay. 27 May waxaa la gaaray heshiiskii golihii wada tashiga. Juun 19keedii 2021 ayaa dib loo magacaabay gudiyada doorashada markii laga cabtay. October 2021 waxaa bilowday doorashooyinka ku bilowday qaabkii boobka ahaa ayaa bilowday oo dalka ka bilowday, taasoo dadkii dhamay ka anfariirisay qaabka doorashada loo bilaabay oo boobka ah oo ku dhisan in doorashada la yiraahdo ama aan boobo halku dhigii laga bixiyay ama waa banada ay meeshii ay ka soo baxday. banadkiina waa kii ku soo dhamaaday in ra-iisul wasaarihii la isku dayay in la afgembiyo oo markii ugu horeysay 1969 kadib hay-ado institution oo madani ah oo rayid ah in xoog lagu qabsado la isku dayay. taas ayaa dhacday. hadda markay taas fashilantane waa tashir loo yimaado Soomaaliya mar kasta oo hor istaag yimaado ama caqabad ay timaado ama stand off waxaan leeyahay iska hor imaad uu yimaado ama la ismari waayo shir ayaa la yimaado. haddaan ka hadalno shirkan dabcan taariikhdaas oo dhan waxaan usoo sheegnay in rajiimka uu hogaamiyo farmaajo iyo kooxdiisa ay marna ogoleyn dalka inay doorasho hufnaan iyo daafurnaan leh oo si nadiifa loogu tartamo ay ka dhacdo inaysan ogolaanaynin. welina caqabadii way wadaana way taagan tahay. shirka marka hadda la isugu yimid 2 ajenda hortaala. ajendaha koowaad waa in la saxo habraacii doorashada iyo habdhaqankii doorashada lagu bilaabay. midda labaadna
waa ra-iisul wasaarihii ka baxsaday ama sigtay ee ka baxsaday inqilaabka ee lafihiisa la baxsaday in uu awood u helo inuu xukumi karo arrimaha security-ga dalka asaga xukumi karo iyo inuu farmaajo soo baneeyo villa Soomaaliya oo banaanka yimaado oo la mid noqdo dadka kale ee musharaxiinta si xal loo helo sababtoo ah intuu gurigaas ku jiro fidna ma deynayo gurigana waa iska dhex fadhiyaa waa ogtihiin hadeertaan 3 shir oo kii hadda ugu dambeeyay ku baaqayna waa soco waayeen ra-iisul wasaarihi hadda dhaha awoodiyaan ka dhimay xilkiyaan ka qaaday shaqadiyaan ka joojiyay waa soco waayeen marka waa nin guri iska dhex degan oo ranti ku degan kiro ku degan laakiin awood dowladda oo sharci aan haysanin markii mandate-ki iyo madaxweynaha dadka ay ku siiyeen ka dhamaadaan saasaad noqonaysaa qof waxaa soo baxaysa awaamirtiisa ay fulaynin laakiin fowdaysta ah oo fowday samay kara oo walqowfihii samay kara oo wax qasi kara baad noqonaysaa waxaan rajaynaynaa marka madaxda shirka hadda u fadhisaa inay garowsadaan haddii shirkan hadda lagu heshii waayo oo labadaas qodob habraaca doorashadii dhaqankeeda la sixi waayo awoodda amniga dalkana ra-iisul wasaaraha lagu wareeji waayo farmaajona lagu qanci waayo inuu ka soo baxo villada waxay noqonaysaa halkaas in ay dhibaato ka timaado waxaan rajaynaynaa inaysan imaanin oo isfaham la gaaro oo dalka hore u socdo oo doorasho la aado oo dadku ku wada qanacsan yihiin halkaasna ay ka dhacdo xil wareejin si nabada ku dhacda oo dalkii ka soo kabto dhibaatadii 5 sano la gaarsiiyey ilaahay ku guuleysiyo hoggaan